waxay muuqato inuusan rabin doorasho heshiis lagu yahay ama doorasho ummadda Soomaaliyeed u dhaxayso inay dhacdo xasan diyaar uma tusaalaheedana wuu iska caddahay xasan waxa uu rabo waxay ka caddahay daliil u ah maamul goboleedyada hadda xilka hayo oo asaga taageersan maxay ku joogaan wadankan wadan weeye sharci leh nidaam leh magaciisi leh bal hadda horta intaan wax kale arkin xasan tijaabadiisii uu qaaday dalka Soomaaliya uu ku tijaabiyay inuu iska joogi karo asaga naftiisa Soomaaliya sidii la yeeli karo xasan tijaabo qaaday tijaabadii waxa la dhihi karaa 75% waa ku guuleystay oo maxay tahay waa in ay iska fadhiyi karaan niman madaxweynayaal ah oo maamul goboleedyo ah oo waqtigoodii dhamaaday cid ku haysatayna aysan jirin dad ay xukumayaan qof la tooganaya saxiix karaan hadduu alla kuusii ogol yahay miisaaniyad iyo dhaqaale ay isticmaali karaan ummadda Soomaaliyeed ay xukumi karaan haddana waqtigoodii u dhamaaday taas marka waxay daliil u tahay xasan bay ka turjumaysaa taas waa maxay xasan waa kuma xasan waa ninka raalli ka noqday ee fuliyay in ay niman madax ku ahaadaan intaas oo sano aan wax system ah iyo wax nidaam ah ku joogaan haba yaraatay isjirin idan dalka waa dalkaas saasoo xasan dalka u rabaa dhibaatada markay taagan waxay tahay ma suurta geli karto maxay suurta geli karin de horta xasan asaga madaxweynaha dalka odayga dalka asaga sharciga inuu dhowr asaga laga rabay dadka inuu soo jiida asaga laga rabay dadka inuu dadka ugu horseedo oo wanaag ugu horseedo oo u sheego meesha wanaagsan oo la aaday asaga la rabay xasan meesha wanaagsan oo dadka u sheegayo waa tan hortiina taala waa waxa uu ku fadhiyo ninka lafta gareen waa waxa uu ku fadhiyo cali guudlaawe waa waxa uu ku fadhiyo ninka la yiraahdo alla kuusa bogol yahay lafta ninka maxaan ku yiraahdo qoor ku fadhiyo soo dalka Soomaaliya ma soo shacabka la xukuumay ma shacabka maxaa lagu xukumaa maanta nimanka kursiga maxay ku fadhiyaan dastuurka dalka xagee ka waafaqsan tahay sadaraad marka xasan taa buu rabaa sidoo nimanka meesha ugu fadhiisay sharci darro oo ummadda Soomaaliyeed maanta ninkii la tooganaya u saxiixayaan iyaga oo wax sharciyadu haysan jirin sidaas oo asagana tijaabiyay waana tijaabadii uu qaado ummadda Soomaaliyeed ka qaaday inay goboladaas aamuseen oo ka aamuseen waxa la kari laayay laba gobol maamul goboleed baa la kari laayay waa Axmed Maxamed Islaam iyo ninkii Hadi Cabdullaahi Den Saciid Cabdullaahi Den waxaan dhihi karaa labadaas waxay sameeyeen survive wadanka Soomaaliya waxay u sameeyeen haddii alla kuusii ogol yahay taariikh bay dhigeen waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin haddii alla si kale wax u arkaan warfiiri nimankaas ayaga ah Axmed waa ninkii shalay lagu soo duulay waa ninkii shalay haddii wax la soo qabta lahaa waa ninkii xoolihii qaranka lagu bixinayay sidii ciidankiisa loo kala furfuri lahaa ayada oo maanta waad ogtihiin gobolka Gedo taliyihii ugu dambeeyay nabad sugiddu hadda xukuma nabad sugidda Jubbaland oo magacaaban dawladda federaalka u magacaaban uu la taagan qarsan leeyahay waxa soo qabanaya Axmed Madoobe oo asagii wali go'aankiisa sidii yahay oo ka noqonin yaa maanta Axmed Maxamed Islaam diyaar wuxuu u noqday dalka midnimadiisa soo ilaalinayo inuu gala Muqdisho markaas haddana waxa la yiri ma waa in la xafiiska ay wali soo gasho markaas haddana wuxuu aqbalay inuu xafiiska galo hada taliyii soo qaban lahaa u sheegeen oo sheeganayo qiranayo oo taagan wali Jubbaland meel kamid jooga taliyii soo diray buu la fadhiistay hor fadhiistay madaxweynihii dalka hor taagan yahay madaxweynihii dalka oo soo diray oo shalay masaajidda lahaa waa la soo qabanaya haddana saraakiishu soo diray ee wali Jubbaland joogto ka talinayso iyo hor fadhiistay idan waxa wuxuu ninkaas samayn lahaa oo haray maxay tahay nin ciidanka loo soo diray wali dul taagan yahay nin taliyihii shalay la soo diray uu leeyahay waa soo qabanaya wali uu sugaan ka noqon haddii ay markii laga reebo haddii warqadii daraad laga saaray meesha dani waan ognahay ciidankii shalay doorashadiisa hor istaagay xasan wuxuu leeyahay waxa dadku u haystaan doorasho qof iyo cod u rabo xasan doorasho qof iyo cod ma rabo Puntland muxuu hor istaagay haduu rabo soo wuxuu shalay ka hortaagnaa Puntland maahin ciidamadii uu asaga u abuurtay oo ku hor istaagay doorashada uu ku hor taagnaa qof iyo cod ka ahay waxa ninkii hadda daraad laas cano tagayay ciidanka inta la hubkiisa aad arkaysaan dawladda heshiis lama aha garwuna la joogaan ayagoo sidaas ayada loo kala furfurahayo oo sidaa ciidamo loogu diyaarsanayo iyo wuxuu ka degay xamar
fila Soomaaliya buu tagay markaasuu filla Soomaaliya fadhiisto aqbalay aad iyo aad nimankaana dilishooda waxay cadaynaysaa inay daacad ka tahay inay doonayaan Soomaaliya midnimadeeda wax walba inay u hurayaan xataa naftooda u hurayaan si fiican xasanna kuwa kale xamar la joogo tusaale ma ka soo qaado de waa kuwii shalay aad ogtihiin oo saldhigii hodan lagu weerarayo aad ogtihiin wuxuu ahaa ninka la yidhaha ra'iisul wasaare hore khayre gaarigiisii baa lagu dhiftay baasuke oo hadduu ku jiri lahaa maxaa loo reebtay waxaan dhihi karaa nimankaa madasha ah waa ka diyaar in Soomaaliya wax heshiis lagu yahay ay ka dhacaan waxay hor taagan yihiin oo ka hor taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed inay hal nin gacantiisa gasho sida uu rabana uu ka yeelo daliisheedin waa idin sheegay waxay ku fadhiyaan maamul goboleedahaas xasan ku fadhiistuu rabaa mal farqu asaga iyo maxay ku kala duwan yihiin haddii maamul goboleedyadu sharciga dalka waa sharciga dalka looma hoggaansamin xasan uga hoggaansan dalna kama laha waad aragtaan sidaasuu rabaa labadan maamul goboleed hadday raaci lahaayeen saasuu yeeli lahaa iyo hadduu mucaaradkii xamar ka jiro ummadda Soomaaliyeed marka u taallaa marka waxay samayn lahayd maalinba geed buu ku maray hadda wax alla wuxuu hadda sheeganaya hadaa laga yeelo haddana wax gulub sheega xasan marka waxaan arkaa arrintaa iyada ma suurtagal ma aha waxayse suurtagal u ahayn madaxweynaha dalka yaa wuxuu rabaa wax gaar oo asaga uu leeyahay wixii baan laga hortaagan yahay ilaa wixiisa ay suurtagal laga yeelana ma qancayo